inta kulankan maanta ka soo qayb gashay wasiiradii hore arrimaha dibadda oo ay ka mid yihiin gudoomiyaha golaha guurtida iyo gudoomiyaha golaha wakiilada oo xilkan ay hayaan ka hor ahaan jiray wasiiradii arrimaha dibadda ee Somaliland 1990kii ilaa 2026 waxaa Somaliland soo maray 15 wasiir al-khaarij. waxaan jeclahay in magacyadooda xuso qaarkood way dhinteen, 5 ka mid ah Ilaahay ha u naxariisto, 8 ka midina maanta waxaan nasiib u helnay inay kulankan nagala soo qayb galaan, 2 ka midina way ka soo qayb geli kari waayeen. kulanka maanta waa taariikh aynu wada xusayno. marka wasiirkii arrimaha dibadda ugu horreeyey 1991 ilaa 93 wuxuu ahaa Sheekh Yuusuf Sheekh Cali Sheekh Madar. Ilaahay ha u naxariisto. waxaa ku xigay Cismaan Cabdilaahi Jaamac Saylici 1994 ilaa 95. Ilaahay ha u naxariisto. محمد عبد الدمبل قلبيدي 95 إلى 96 الله هو نحرست. وزير كريم الدولة أفراد سليمان محمود آدن دوميها قوله قلت ده وكفر أحسن معي إنه ما أنت أنا نريد شو بيسوق دوميه قوله قلت ده الله هو نحرسته. محمود صالح فقاله وزير الخارجية لحاد عبد الحميد قرات جامع أيها وكلن كل سوق الجيش وعي الله نحرسته. وزير في هرمة دبيدة الطبار بروفيسور محمد سعيد قيس الله نحرسته. وزير في سديدات وهو الدكتور أدنى آدم إسماعيل أنا كفر أحسن هاي إني نرشوت. وزير في السقالات عبد الله يره عبد الله محمد دعاني. وزير في طبناد دكتور محمد عبد الله عمر وأنت من كريباي سفير في نيروبي. وزير في كوبيا طبناد دكتور محمد بيحي يونس أكفر أحسن هاي من الشوقو. دكتور سعد علي شره سنين الشوقو أكفر أحسن هاي. قدوميها قالها وكيلة بروفيسور ياسين حاج محمود. وزير أفريقيا طبناد وها دكتور عيسى كي محمود سنين الشوقة. وزير شنية طبناد وزير هذا حلك هيا عبد الرحمن ظاهر آدم. runtii waxaan taariikhda xusaynaa in dhammaan wasiiradaasi uu mid kastaa ku lahaa tacab badan ictiraafkaynu maanta helnay, inuu mid kastaa shaqo badan qabtay iyagoo dowlado xukuumado kala duwan ka tirsanaa oo u shaqaynayay. maanta waxaa farxad weyn ii ah inaan halkan kula kulmo badi wasiiradii arrimaha dibadda ee jamhuuriyadda Somaliland soo maray intii ay jirtay. waxaad ahaydeen wasiirayaal shamaca baadigoobayay aqoonsiga jamhuuriyadda Somaliland. qof wal oo halkan fadhiya iyo intay naga maqan ama inaga dhimatay Allah ha u naxariistee waxaad geliseen qadiyadda jamhuuriyadda Somaliland dadaal guulo orod shaqo badan oo guuro iyo habeen dhaxba leh. farxad bay ii tahay inay maanta isu helno fursad aan ku dhageysano taladiina idinkuna mahadnaqno, waxaana kaga baranno casharada ku duugan shaqadii arrimaha dibadda ee aad qaranka ugu soo adeegteen. marka dal aan la aqoonsanayn aad matelaysaana
way ka sii culays badan tahay sidaa awgeed waxaan idiin aqoonsannahay inaad tihiin mujaahidiintii diblomaasiyadda Somaliland waxa aad isaga soo kala dambaysay shaqo fiican oo sees u noqotay dhismaha xiriirka arrimaha dibadda ee Somaliland waana tan noo fududaysay inaanu sii dhammaystirro oo maanta uu Alle inagu guuleeyey aqoonsigii koowaad kuwo kalena aynu filayno insha Allahu waana sababta aan idinku yeedhnay kulankan mahadnaq iyo talo iyo wax soo weydiin madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland waxa uu si cad u qeexay siyaasadda arrimaha dibadda ee jamhuuriyadda Somaliland ay ku dhisan tahay iskaashi istixgelin iyo dana wadaag waxa hoosta ka xariiqeen jamhuuriyadda Somaliland aanay ahayn dal gadoonka dunida kale albaabadeeduna u furan yihiin isla markaasna ay soo dhaweynayaan cid kasta oo la macaamilaysa rabta inay wax la qabsato iyo cid kasta oo Somaliland niyad samaan kula shaqeynaysa cidii aan xogayaal u ahayn shaqada ay Somaliland qabsatay iyo dhowhanayaal ayuunba aqoonsigeenna ku noqday u qaadan waa iyo kadis cidda kale oo kasta way filaysa waa aqoonsi ka dhashay dadaallo isbiirsaday oo intiinii madashan fadhida mid kasta wax ku darsaday taas ayaanu ku sii kordhinay dadaalkayaga iyo istiraatiijiyadii diblomaasiyadeed ee sii dhammaystiri lahayd alle mahadiina oo inoo midho dhashay siyaasadda arrimaha dibadda ee Somaliland waxay ku dhisan tahay iskaashi istixgelin iyo dan wadaag gaar isuma faquuqayno albaabadayada ma xidhayno oo dunida oo dhan ayaanu la macaamilaynaa cid kasta aanu wax la qabsan karno diyaar baanu nahay iyaguna niyadsami iyo wanaag iyo wada shaqayn noo haya waxaan u mahadnaqaynaa dowladda Israa'iil ee aqoonsatay jamhuuriyadda Somaliland diyaarkana u ah inay la yeelato iskaashi labada dalba dana u ah waxaan fursaddan uga faa'iidaysanayaa inaan u sheego dalalka aanu saaxiibka nahay deriskayaga walaalahayaga carbeed iyo kuwa gobolka ee muslimiinta ah iyo kuwaan ahaynba gaar ahaan kuwa ku jira Africa Union dadka waynu isaga dhownahay waxay naga dhaxeeya dhul taariikh diin iyo dana kale waxaanu idinka mudnayn inaad idinku hogaamisaan garabsiinta qadiyadda Somaliland haddii se laydinka dheereeyey waxaan gaar ula sii hadlayaa dalalka carbeed iyo kuwa islaamka weli fursado badan ayaa u furan idinkoo gobonnimadana ilaalinaya yaanay caadifadda iyo muusanowga maangaabku idin hodin oo ha ka hadhina aqoonsiga Somaliland ummadda Somaliland waxaan mar kale u caddaynaya in siyaasadda xukuumaddaydu ay tahay daahfurnaan wada tashi ka faa'iidaysiga waayo aragnimada haldoorka bulshada iyo tixgelinta fahamka dadweynaha sababtaas ayuu ku yimi kulanka wasiiradii hore ee arrimaha dibadda waana aan sii wadi doonaa kulamada si aan u dhageysano haldoorka culimada aqoon-yahanka dhalinyarada haweenka iyo bulshada qaybaheeda waxaan kaloo aan tixgelinayaa insha Allahu fulina doonaa talooyinka ay soo jeediseen ugu dambeyn taariikhdu waa mudan iyadoo markhaati nool ah dalka jamhuuriyadda Somaliland cida kuma muransana inuu 1960kii Juun boqortooyadii Ingiriiska ka qaatay xorriyadiisii meel walbana way taal madxaf kasta way taal jimciyadda quruumaha ka dhaxaysa way taalla buugaagta taariikhda way ku qoran tahay cidda dafiraysa iyadaa lugooyo isugu filan annaguna jiritaanka iyagu waa khad cas oo lama taabtaana Somaliland way guulaysanaysaa dalalka kalena way aqoonsanayaan bulshada caalamkana way ka mid noqon doontaa
kursigii ay xaqa u lahaydna way ku fadhiisan doontaa guul iyo gobonnimo waarta ayaa shacbiga Somaliland uga baryayaa ilaahay sidaa uu sheegay guddoomiyaha golaha guurtidu maanta cadowgeenu intii hore uu ka batay kuwii boholaa ku jiray way soo baxeen kuwii dhuumanayay way soo baxeen maanta waxaynu kala ogaanay yaa cadow inoo ah yaa saaxiib inoo ah waxaynu kaga baxaynaa inaynu cadaawadda iyo colaadda aynu ka hortagno midnimo qaran shacbigayga waxaan soo jeedinayaa midnimo midnimo midnimo